haddii aad la fadhiisato madaxweyne silfakiir haddaad la fadhiisato adiga silfakiir maxaa idinka dhexeeya federaalku wuxuu yahay waa dowladda dhexaa xoog leh xoogna waxay ku leedahay waxaa hoos taga oo ay maamushaa arrimaha ciidanka qalabka sida iyo difaaca dalka waxay maamushaa siyaasadda dhaqaalaha waxay maamushaa siyaasadda arrimaha dibadda waxay maamushaa siyaasadda immigrationka iyo xuduudada haddaad maqashaan dowlad awooddeedu waaba intaasba dowlad goboleedyada waxaa u soo haray in adeegii ay gaarsiiyaan hadday tahay waxbarasho hadday tahay caafimaad hadday tahay inay dadkooda mas-uulka ka yihiin ay ka warqabaan hadday tahay ceelal inay u sameeyaan iyo canshuuraha inay aruuriyaan oo qaybna ay ku leedahay dowladda dhexe anigu waxaan ka hadlaya systemka federaalka adduunka ka jira waa noocaas laakiin maamul goboleed hadduu yidhaahdo siyaasad arrin dibadeedaan leeyahay oo gaar ah oo waxaan rabaa socodka inaan badiyo oo meelo badan tagtago su-aasha taalo waxay tahay haddii aad la fadhiisato madaxweyne silfakiir haddaad la fadhiisato adiga silfakiir maxaa idinka dhexeeya maxaa kala siixan kartaan ilaan adigu dowlad goboleeda tahay ninkan wuxuu madaxa ka yahay marka haddii aad soo raadsato silfakiir iyo madaxweyneyaasha gobolka nala degan haddaad soo raadsato ama ra-iisul wasaarayaasha soo raadsato macnaheedu waxay tahay waxaad muujinaysaa dalkaaga inuu kala daadsan yahay dalkaaga inuu fowdan yahay maxaa yeelay maamul goboleedkooda aniga ima imaanayo nidaam iyo shuruuc iyo kala dambeyn iyo taalla marka macnaheedu waxay tahay arrimo dabadeed ma yeelan karo dowlad goboleed ma yeelan karo dastuurkana waa qoraya ciidamo xuduudada difaaca oo xoogga dalka soomaaliya la yidhaahdo ma yeelan karo iyadana marka haddii la yidhaahdo ciidamaa la aruurinaya yaa lagula dagaalaya ciidamadaas waxaan weeye arrimaha dhaqaalaha waa sidaas dowladda dhexaa iska leh monetary systemka dhaqaalaha iyo daabacaadda lacagaha iyo inflation controlkeeda in la control inflationka iyo haynta xafidaadda dhaqaalaha lacagaha dowladda dhexaa iska leh immigrationskana waana saas oo kale iyada naftigeeda meelaha laga soo galayo dalka waxa weeye waa meel dowladda dhexe ay gacanta ku hayso si kale aan idinkugu dhigo haddii marka dowlad goboleedku uu yidhaahdo intaas anaa iska leh federaal maaha waxaan ka shaqaynayne waa confederaal way confederaalna waa one step away waa hal tallaabay waxu jirtaa kala go-id dalkaas inuu kala tago ma rabtaa dalka inuu kala tago idinka ma rabtaa soomaaliya inay kala go-do confederaal ma rabtaan waxaan qaadanay federaal awooddiisana uu saas yay ugu qeexan tahay dastuurkeenna sidaas darteed waxa la isku haysto waa intaas wax kale maaha waxaan leenahay dhaqankii hore annaga waa diidnay shisheeye nooma imaanayo nama soo fargelinayo shisheeye
aan wada hadalno wax walba hana kala gaaraan waxaan aan dhamaysanno annagoo hoosleena bannaanka u soo baxno